وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك واجي بريبا أو بحلقة ورابشو واجي بريبا أو بحلقة ورابشو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إما بعد magacaygu waa Asma Nuur Xaashi ka tirsan ardayda sare ee dugsiga sare Al-Irshaad Secondary School gaar ahaan waaxda tiknoolajiyada iyo sayniska maanta halkan waxaan ku soo diyaarinaa sameeynaya tijaabo ah chemistry taas oo ah sabonification waa processka loo sameeyo saabunta haddaba agabkan isticmaalaya muxuu yahay intaanan gelin gudagelin tijaabadeeda agabkan isticmaalaya wuxuu yahay laba xabo mission cylinder ah sodium hydroxide solid ah saddex xabo beaker yar xabad beaker weyn styrene rod iyo soo kale shape-keegi iyo sodium chloride amaba san naqaan saltigeena caadiga iyo saliid caadi oo tii ah coconut oil iyo dabkii xabad tongis ah iyo inta wixii ka dambeeya waxaan gudagaleynaa tijaabadeena marka horeysa waxaan soo qaadanayaa sodium hydroxide waa tan laakiin waa solid waxaan rabaa iyadoo tijaabadeeda iyadoo aqueous ah marka waa inaan biyo ku daraa afartan miligram oo ah sodium hydroxide iyo biyo imikana waxaan bilaabaynaa inaan isku walaaqno waliba aad ilaa inta ka milmayso oo la isku walaaqaya ina yara dirto ma baanay way dirtay bas intaas ay ku filan hadda waxaan sameynayaa saliideydii ayaan ku darayaa tartiiba waan isku yara walaaqaya xoogaa xeer kadib dabkaan isku saaray waxaan sii milanayaa sodium hydroxide amaba cusbada milixdayda san naqaano milixdeena caadiga halkan waxaan ku shubtay 20 miligram oo ah salt iyadana oo milanayaa xogaa isku yara walaaqaynaa si ay soo dhex galaan saliid iyo biyo sodium hydroxide iyo saliid runtiina hadda way dhan tahay laakiin se in yar baa u harsan inay maxay tolo biyo ka wada baxaan marka waqtigu inagu yari darteeda ma rabno inaynu aan ku tijaabino aan ku qalajino inta dambe lagu soo daraya iyadoo caynkeedii oo shape-keedii leh hadda waxaan ku tijaabinaa iyadoo sidaas aan tijaabinaa inay xumbaynayso iyo in kale هذا وين راح نبيس بيان خش وعاد بيان صار بيان عاد بس كف صور
Irshaad Secondary School waxaan qayb ka ahay ardayda soo bandhigaysa tijaabooyinka marka aniga tijaabadeedu waxay ku saabsan tahay waxa weeye 1000 shilin ee lacagta ayaan dab qabasiinay laakiin guban mayso waxa la mid ah wax kasto waraaqa iyo waxyaabihi kaleba marka qalabkan u baahanay waxa kamid halkan waxa igu jira 100 mm oo biyo halkanna waxaan uga baahanahay waa 50 mm oo ethanol marka aan isku daro وادركت لعقتي دبن قبسي هذا ما يقبل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waxa weeyaan Balqis Umar Ahmed waxaan ahay arday dhigata dugsiga sare ee Irshaad Secondary School goobtaan maanta ku suganahay waxa weeyaan science labka dugsiga sare ee Irshaad Secondary School maanta tijaabada aan ka hadlayaa waxa weeyaan temperature effect sida heerkulku uu saameynta ugu leeyahay falgalka haday temperature-ku ama heerkulku uu kordho rate of reaction uu ka dhigaa imka xagan waxaan ku haystaa sodium thiosulfate acid mid aanan diirin iyo taadabka ay saaran oo ah mid aan diiriyo maadaama aan ka hadlayno rate of reaction aynu kala eegnaa daba sidoo saameynta ugu leeyahay rate of reaction rate temperature-ku sidoo saameyn ugu leeyahay reaction-ka tusaale ahaan baad inuu soo qaadano masaasada yar ee caruurta marka caanaha lagu qooshay biyo qabow lagu ma qoosho waayo uu fadhiisanaya caanuhu laakiin biyo kulul baa lagu qooshaa sidoo markiiba de caanuhu mulmo xagan sadkooda arkaysan waxaan ku haystaa sodium thiosulfate reaction-ka markaan isku daro waxa soo baxaya water plus sodium sulfate plus sulfur oo noqon doonta yellow precipitate waad arkaysan markii ugu horeeyay kalarku wuxuu isbedelay tii aan dabka saaray heerkulkeegii aan dalacay temperature-ka ahayd sida marka waxaan ka bogonaynaa in temperature-ka hadaa la kordhiyo oo rate of reaction kordhiyo imka xaga waxa soo baxay sulfur oo ah yellow precipitate intaas ayuu geeyay reaction-keegii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaah marka hore magacayga waxa weeyaan Raadiyo Xasan Shaqale maanta waxa joogay suuqa Irshaad waxa kamid ah ardayda iskuulka Irshaad dhigta maanta waxaan soo jeedi doonaa ama ka qayb qaadan doonaa experiment-kan maanta waxa weeyaan aniga inaan sameeyo hab qaraxa kamid ah oo taasoo isticmaali doono chemicalska sulfuric acid laba iyo lithium iyo potassium labadaas oo keenaysa inay qarax ama keeni doonaan laakiin waxoogaa kala qaadi doonaan ama kala dambeyn doonaan sida habka isagoo isku mid yihiin curyaha kala ama period table-ka isku period dhacaan ama isku group dhacaan laakiin waxay ku kala qaadanaysaa ama qaraxu ku kala dambeyn doonaa habka ama reactivity-ga soo kala sareeyaan oo waxa sareysa reactivity-ga potassium-ka oo lithium-ka dambeeya sida abris codootiin imkana waa bilaabi doonaa iska daya waxa jira flame waxaan qarxina ama keenay qaraxa waxa weeyaan hydrogen bubbles oo waxa heat ka iman waa exothermic عبد الموسى أنا مقعد بهذا عبد الموسى كسرت دوسي جسرة الإرشاد وحن هالكن كنت شابني وحلا يقانا diffusion هرت هذا diffusion information دكاسيسيو diffusion وحويه from مركو objective from higher concentration to lower concentration waxa yaabo badan way saameeyay diffusion-ka laakiin se main effect-ga saameeyo waxa ka kooban temperature-ka halkan waxaan ku haystaa biyo hot water halkan waxaan ku haystaa biyo cold water bal hadda aynu tijaabino tabta oo u saameeyo temperature-ku okay waxaan isticmaalayaa
small amount ah potassium permanganate. sida daragtaan biyaha hot water-ka ah markiiba expansion bay ku sameysay oo if the temperature increase the rate of reaction increase and also if the temperature decreases the rate of reaction decreases tan wada aragtaan si fiican bay expansion ka sameysay laakiin se tan wax expansion ma sameyn potassium permanganate kan ku darayna toos waxa ay fadhiisatay gunta sidoo kale apparatus kan isticmaal waxa kamid ah two conical flasks inta soo aniga ku eeg yahay tijaabooyinkeygii رب العالمين أنا مقعدي ودي عبد الله محمد أحمد كنا صعود سكول قرشات سكندري سكول ما أنتوا حنسمينا يا وحوي يعني سيدا قعماق وسمين كرتيد أول دوكين كذا كرتيد حنبضة مركا والله كوا حنسمينا بسم الله الرحمن الرحيم مقعيا ومن خير مصطفى محمد كلا ساعة دوكسي الإرشاد سكندري سكول كلا بدا أردنا صوب كيمستري تيمكا كواسو صوب بندقي دورا وحيالا كسابسا ساينسكا أنا باتو حصوب بندقي دورا قيبتا بيولوجيكا قيبتا سا internal organiska bilaadanka marka hore waxaan ka bilaabayaa madaxa abahead madaxu wuxuu ka kooban yahay marka hore wuxuu ka kooban yahay lafta iskalka lafta iskalku wuxuu ilaaliyaa sensitive organisku ku dhex jira sida isha carabka sidoo kale waxa ku sii dhex jira madaxa brain taasoo ka kooban nervous systemka waliba central nervous systemka iyo sidoo kale spinal cordka intaanu ka hadlay waxa ka hadlaya internal organiska marka inta ka imanno waxa ku soo xigaya sadodaarkiisaba liverka waxa ka liverku waxay ku yaalaa chestiga waxaana ka dhaca exchange of gases dhigi bil oxygen ta ee la keeno wadnuhu keenay ay oxygen ku daraan sidoo kale waxa ka dhaca inhalation iyo exhalation waxa ku soo xigaya wadnaha wadnuhu ka kooban yahay circulatory systemka wadnaha sadarka sadhiig qayb buluuga iyo xulay qayb cas dhiiga buluugi waa dhigi bil oxygen ta ee jirka ka yimid dhiiga casna waa kii oxygen ta sababka laga soo daray ee geynaya jirka gabigiisaba waxa ku xigaya liverku waa largest gland in the body wuxuu ku yaala qaybta midigta liverku wuxuu sameeyaa wuxuu kaydiyaa glucose sidoo kale wuxuu soo saaraa bile taasoo ka qayb qaadata digestionka waxa ku xigaya stomach waxay ka qayb qaadataa digestionka waxaana calooshu ay qabataa cuntada ayaa si temporary ugu sii jirta sidoo kale waxay soo deysaa dheecaano kuwaasoo burburiya cuntada waxa ku sii xigaya intestine laba qaybina waa large intestine iyo small intestine large intestine waxa ka dhaca absorptionka digestionka ka dhaca absorptionka inta u badan ka dhacda small large intestine inta kale waxay qabataa waxay nuugtaa biyaha waxa ku xigaysa kelidu waxay qabataa filtration of blood dhiigga ayay sifaysaa sidoo kale waxay qabataa osmoregulation taasoo ay dhiigu markuu concentration yahay ayaa jirka waxay ku amartaa inuu dhiigga dilute ka dhigo biyo badan soo nuugo inta ugu dambaysa wadana waxa weeyaan urethra waa kaadaysta waxay qabataa kaadida ayay haysaa ilaa inta laga sii daynayo bismillaah magacayga haddaan ku bilaabo Saalim Cabdiqaadir Maxamed dugsiga marka hore waxaan u mahadnaqayaa dugsigayga Al-Irshaad Secondary School oo noo suurtageliyay agabkan iyo qalabkan iyo chemicalskan badan inaan isticmaalo marka labaad waxaan u mahadnaqayaa macallinkayga macallin Cabdidaayin oo noo qabtay hawshan aadka weyn sida saan u sameyn lahayn tijaabooyinkan doonino intaa kadib haddaan tijaabadayda u guud galo chemicalska aan isticmaalay waxa weeye hydrochloric acid sidoo kale waxaan isticmaalayaa birta la zinc
magnesium iyo sidoo kale waxaan isticmaalayaa magnesium iyo cobalt intaa kadib waxaan samaynayaa waxa loo yaqaan waxa weeye cell marka hore horta waxaan garanaa bayteriga ina bayteriyada maalin walba aan isticmaalnaa waxaan gashanaa laambadaha torchiskan gashanaa si walba aan isticmaal laakiin simple cellka amba bayteriga fudud qalabka iyo waxyaaluhu ka samaysan yahay loo sameeyo iyo waxa dhacaya haddaan nii sheego marka hore waxaan soo qaadanaa hydrochloric acidka waxaan ku darsanaa in yaroo biyo si noo noqoto electrolyte intaa kadib waxaan isku xiriirsanaa waxa weeye voltageska voltmeterka aad aragtaan ayaan ku xiriirinaa labadii birood aan tijaabinay kan waxaan ka dhiganaa control kanna waxaan ka dhiganaa testing baan ka dhiganaa intaa kadib haddaan imka nituso voltmeterka waad aragtaan voltmeterka wuxuu tusayaa voltageka waxa loo yaqaano markaan labadaas ku darno saad aragtaan waa ka dhaqaaqay 0.5 u dhaqaaqay marka waxaan loo suurtagelinayaa waxa weeye reactivity of metalska waxaan loo yaqaano oo electronics inta ka soo baxaan birta reactive-ka badan ayay u imanayaan birta less reactive-ka amba reactive-ka yar haddaan imka birta zinka ka bedelno waxaan oonu bedelno cobarta saad wada aragtaan voltage-ku isbedelay marka hore wuxuu ahaa 0.5 imkana 1.5 u maraya haddaan bir lamida oo isku reactive sida magnesium labaad haddaan gelinina isma bedela reactive waayo labadan birood waa isku reactive marka waxyaalaha waxaan u suurtagelinaa waxa ka koowa waxa weeye reactivity of metals saddexdan birood aan soo qaadan way kala reactivity duwan yihiin laakiin markaan laba birood isku reactivity markaan wada gelinay wax reaction mu dhicin because of midna electronics ka bixinaysa takalana way qaadanaysaa bismillaahir rahmaanir rahiim ugu horeyn waxa ilaahay ayaa mahadle marka labaad waxa mahadle iskuulka Lishaad Secondary School macallimiintiisa iyo maamulkiisa anigoo magacaygu yahay Faysal Cabdiraxmaan Maxamed ka tirsan iskuulka dugsiga sare Lishaad Secondary School kana mid ah ardayda dhigata waxaan maanta halkan ku soo gudbinayaa in tijaabo kamid ah tijaabooyinka iskuulka lagu sameeyo tijaabadaas waxa weeye waa circuit-ka waxa loo yaqaan ama maxay ahayd toy in mareegtu waxa weeye waa jidka ay marto electric ama dabku mareegtu waxa ay ka kooban tahay laba qaybood ayay ka kooban tahay labada qayboodna waxay yihiin parallel circuit iyo series circuit parallel circuit waxa weeye waxa la yiraahdaa waa mareegta talantaaliga series circuit kana waxa la yiraahdaa waxa weeye waa mareegta taxan series circuit ka iyo parallel circuit ku labaduba waxay leeyihiin in laba hab oo loo kala xiro waxaanay kala duwan yihiin habka loo kala xirayo series circuit ka imka hadaan xidhno waxa la isugu xidhay end by end waxa loogu xidhayaa lambadaha oo dhan waxa la isugu xidhayaa end by end caara kasta caaradeeda ayaa lagu xidhayaa dabeetana marka waxa sameysmaya waxa loo yaqaano series circuit ku waxay kala duwan yihiin series circuit ka iyo parallel circuit ku waxa kamid ah hadii lambada ama hadii circuit mareegta hadii loo xidho waxa loo yaqaano series circuit-ka waxa dhacaya in leerka daciifo sida halkan ku arki doono hadii in marka series circuit u xidhno waxaan isku xidhnaa end by end halkaay marka waxaan u xidhnay mareegta series circuit-ka waxa kamid ah waxa la isku xidhay end by end data waxa wareegaya hadii marka series circuit waxay kale leedahay hadii marka laga saaro hal lambado kale way wada baqtiyayaan sababtoo ah sourceska light-ka ay ka helayaan ama bayterigooda ayaa mid kaliya hadii waxay leeyihiin oo kale waa hal daaradimiye saasoo kale waxaad ku xidhan kartaa series circuit-kaaga markaad imika hadaad dhowr bakhaaro kale leedahay hadaad dhowr bakhaaro kale leedahay doonaysi meel kaliya inaad ka wada shidid bakhaaradaada aanay ka qaadan inaad meelo badan ka shido ama inta badan aad baqbaqtinayso waxay ku fiican tahay inaad series circuit u xidhato oo marka waa hal daaradimiye ay yeelanaysaa habalaynu eegno qaybta labaad ee ay leedahay waxa loo yaqaano in parallel circuit ama qaybta labaad ee loo xidho mareegta waxa jirta
sayn soo sheegnay qayb labaad oo loo xidho waxaan loo yaqaano mareegta qaybta labaad waxaa la yidhaha parallel circuit parallel circuitka waxaa la israacinayaa intii xadhiga isku midaba dhankooda ayaa la isku raacinaya deeta markaa waxa samaysmaya wax loo yaqaano serial circuit ay halkan ku wada arki doono halkaa waxaa iminka samaysmay wax loo yaqaano parallel circuit parallel circuitku waxay kaga duwan tahay serial circuitka horta waa marka koowaad ee way ka iftiin badan tahay waa marka labaad ee waxay iyadu leedahay mid waliba switch u gaar ah ay leedahay iminka haddaad doonaysid inaad taa baktiisid switch u gaar ay leedahay tan kale switch u gaar ay leedahay ta saddexaadna switch u gaar ay leedahay halkaa waxa kale ay iyadu kaga duwan tahay haddii ay xumaato mid ka midii intii kale sidooda ayuu shaqaynaya waayo iskuma xidhiidhsana waxaana kala duwan meesha ay leedh ka helayaan ama waxaan loo yaqaano daaraadamiyahooda switchkooda mid waliba waxay leedahay daaraadamiyo gaara waana sababta inta badan loogu xidho guryaha iyo circuitka ama leedhka loogu xidho waxaa loo xidhaa inta badan parallel circuit parallel circuitkuna waa sababta lagu doortana waa sababta